السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الشرفت له كسو دوادا جلينكا جيلكا barnaamijkeeni reactionka musalsalka haboon ayaan horey usii wadi doonaa qeybihii hadda ugu dambeeyey qeybta 22 ilaa iyo qeybta 23 qeybo aad iyo aad u xiiso badan oo ahaa qeybahaasna qeybta 23 ayaa ugu kulul shakiga ugu weyn meeshaas oo laga dareemay inuu muuqday musalsalka haboon dadka xiiseeyo dhan ilaa iyo dadka xiiseeyo filmaanta Soomaalida aad iyo aad aan soo dhaweynaa insha Allah barnaamijkeena sii wadi doonaa barnaamijyo kale oo filmaanta Soomaalida iyo jilayaasha ku saabsan waa soo qaadan doonaa waqtiga ugu yar awgiisan hataa intaan soo duduubana intaan waa badi lahayn laakiin waqtiga ugu yar don't worry ka gudub hadii aan u gudo galno qeybta musalsalka haboon qeybtii 22 aad iyo aad u xiiso badnaa hadana xiisahana waxaa zaaid u sii xiiso badan qeybta 23 qeybtii 22 ayadana qeybo badan oo waxa ku jiro oo macquul ah waxa kamid ah ismahaan iyo xidhibaan jaamac ilaa hadda waa lagu adkeenayo ma fahanti ismahaan ilaa hadda way fahmi laadahay xataa giftiga u keenay giftigii xataa way ku daadisay ma fahanti shukulaato wuxuu u keenay markuu sii baxayna eerisayna shukulaatadii cuntana marka way dhacdaana gabdhaha Soomaaliyeed saas mararka qaarkood u adkeeyaan ragga qaasatan dadka waaweyn qeybtaas marka laga soo gudbo qeybta kale ayadana ay ka hadlayso Axmed iyo idilna waxay ka daba cararaysaa ilaa ay hadda Axmed oo jecel galo dhinaca aaday haboon ayadana wali way ka daba cararaysaa ilaa hadda waxay taagan tahay balanti labaad waay oo abaajinaysid ma ku fahmin ay taagan tahay balanti labaad waay oo ka baajinayo Axmed marka kale idil iyo Axmedna kale dhankooda waxa waaye naftaan naf bay rabtaa naftuna naf kale rabtaa marka taas ka socoto ayadana dhankooda okay ka gudub qeybta kale oo ayadana macquulka ah Esther iyo Ismahaan oo zaaid isku raadinaya hadana qeybtan kale jikada xiisa aad iyo aad u weyn iyo jiliin aad iyo aad u qurux badan meesha ka dhacay qeybtaas aad iyo aad Esther ugu soo baxsatay qaabka ay ugu jeesjeesaysan caadi ah qeybtan kale Zubayr iyo raalgelintii uu imaaday Jamaal asagana iyo tacsiyeyntii Jamaal tacsiyeyntii oo ka aqbalay laakiin wuxuu dhahay ma soo galnaba mardam isku soo laabanayno kale xiriir kale oo saaxiibtinimo oo dhaxmaray ma jirto marka Zubayrna uu soo laabtay asagana gabadhii asaga waxay ku heshiiyeen oo ka soo laabtay Zubayr Xamdina ilaa hadda booskeeda ku taagan tahay qeybta 23 ayadana waa qeybta ugu xiisaha badan ee musalsalka haboon qeybtan waxay ku cadeynaysaa hadii aad soo gaartay qeybtan oo aad ka soo bilowday season 1 ilaa iyo hadda season 2 qeybaha aad soo fiirsanayso dhan qeybtan marka soo gaartid waxaad dareemaysaa filimka ma dhamaan rabaa is leedahay shaki badan ku galay ma fahanti filimka ma dhamaan rabaa adiga waxyaabo badan oo astaamo oo filimka gabagabo inuu yahay oo kale aad dareemaysaa qeybtan qeybaha ugu xiisaha badan waxa kamid ah haboon waxay raadin dheer u galay shakiga ka qabto iyo sheekada ay ku soo maaxatay markuu u sheego Jamaal in magaca haboon ay u bixisay hooyo Amran magaceeda horena aan la aqoonin waxa ku soo dhacayso isla markii wiilkan arinta uu sheegay oo Jacfar markay ka fateerigi joogtay markii loo sheegay asagana uu dhahay anaga waxa naga maqan gabar familkeena gabar yar ka maqan marka waagi hore dagaalada ayaan kala lunay waxaan aaminsanahay inay dagaalada ku dhimatay aaba soo raadinay ayuuna dhaawacmay marka arintaas ay yar sameynaysaa waxayna raadin u galaysaa Jacfar waxay ugu tagaysaa qeybtiisa shaqada qeybtaas ay ka raadinaysaa xataa uu maqan yahay leeyahay kadib uu sugay uu imaanaa kadib sheeko dheer dhaxmarayso oo ku saabsan arintii
gabadhooda yareed. Marka Habboon waxaa meesha ugu soo baxayso, waxay leedahay Jacfar waxay ku leedahay Habboon gabadhi markay dhumaysay meeqa sanay jirtay 3 sano leeyahay. Marka 3daas sano waxaa lagu ogaan karaa Maama Amran ayuu ku ogaan kartaa, inkastoo odayga oo dhintay Oday Cali. Marka qisada markuu u dhameeyo Jacfar waxay soo raadinayeen si ay Maama Amran ula kulanto, waxay soo raadinayeen Jamaal ay xafiiska si degdeg ah ugu imaanaysaa si ay u weydiiso inay aado guriga hooyo Amranna ay la kulanto. Markaas Jamaal wuxuu leeyahay asagana gabadhii Xamdi ahayo asagana ilaa hadda oo ka gambanaa xogaa kulankeeda ma jeclaysan mana rabo. filinka ay wadatay dhanna wuu fahmay, ayadana afkeeda ugu sheegtay. Marka uu ka jaakiraa gabadha Jamaal la shaqeyso markay imaado dhahdo Jamaal waa lagu imaaday gabaraa kuu taagan banaanka, wuxuu leeyahay Xamdi hadday tahay shiruu ku jiraa dheh, hadday aysan ahayn iisoo daa. Marka gabadhi waxay qalad samaynaysaa, waxay dheh abbaay meelan ku arkaan filaa magaca. Markaasay leedahay Habboon Xamdi aan kuu maleynaya, tan kale meesha aan ku arko waa Xamdi. Kadib way laabanay, waxaa loo dhiibay isla markii cari yaraa ka dareemay Habboon oo wejigeeda arrintii ay waday markay Jamaal ula tagto arrintii ka wada hadlaan. Ay markay xafiis ka bixis waxay dhahay arrin kale ay leeyahay inay xafiiskan Xamdi imaado ma ogeen, waa ogaaday. Arrinkaasna wuxuu tuhun ku abuuray ama shaki badan ku abuuray Habboon. Jamaalna aad iyo aad ayuu arrintaas ugu xumaaday, xataa murugo ayuu ka muujinayay arrintaas. Xamdi in lagu ag sawiro muusan rabin in lagu ag arko. Haddana wixii way caddaadeen, xiriirkoodana wuu sii kala dheeraaday Jamaal iyo Habboon. filinka qaybtiisa 24aad iyo 25aad oo wada arki doonaa kulanti dambo xiiso leh